Maalin wanaagsan asxaabta waa idin salaamay dhammaantiin. Ee, Maalmaha wararku waxay soo sheegayaan ee, in ay ka soo baxeen niman ka faa'iideysanaya sharciga dowladda Somaliland. Waxaa jirta dhalinyar badan oo hadda la sheegaya in xabsiyo ku jiraan oo la xiray. Sababta lagu xirayna ay tahay niman u shaqeeya baa layidhi meel CID wax la dhaho ma aqaano, ayaa wiilasheeda waxay isku dayaan had iyo jeer inay faa'iido ka helaan, ay wax la sameeyaan. Marka wiilasha yaryar haddii ay isfahmi waayaan amba uu qofku iska diido, nimanka waaweyn CID-da la shaqeeyaan baa maqlay. Marka CID-da information siinayaan oo ay ku dhahayaan qofkaas waa sidaas iyo sidaas. CID-duna iyagoo maryo caadsatay ku imanayaan baa lasoo sheegayaa, oo marka intay kaa qaadaan mobilkaaga ayay ka eegayaan wax caddayn ah. Hadday markaa ku arkaan sawir LGBT amba calanka LGBT-da amba waxyaabo aad qof wiil jilicsan oo kale tahay, mobilka lagaa qaadayaa, kadibna 13 sannadood oo xadhig ah ayaa qofka lagu xukumayaa. Waxay wararku soo sheegayaan inay jiraan dad faamilo fiican ka dhashay oo intay magaranaysaa lacag bixiyaan markaa qofka inta lasoo daayo waddanka laga soo dhoofinayo. Laakiin haddii aanad chanceskaas adigu haysanin, markaa wax kugu dhacaysa inaad jeelka ku jirtid muddo fara badan. Taasna waa wax aad murugo u leh runtii. 13 sannadood oo xadhig ah. Ta kale labaad, qofka markaa la xidho, qofku markuu waddanka yahay wixii dembi oon la ogolayn, badanaa waxa ka faa'iidaystaa dadka xunxun ee akhlaaqda xun leh. Magaranaysaa dad carruurta yaryar fara xumeynaya, waayo ilmaha yar wax ma sheegayo saan hore marar badan uga soo hadlay. Marka nimankaas waaweyn badanaa waxay ka faa'iidaysanayaan wixii sharci ma aha. Marka badanaa wixii markuu waddanka sharci ahayn suuq madow bay noqdaan. Markii suuq madow noqdaana dadka ugu xun ugu akhlaaqda xun leh bay dani ugu jirtaa, waayo cid soo qabanaysa ma keenaysa ma laha. Had iyo jeer dhibta ugu weyn waxay haystaa dhalinyarada yaryar ee teenager-ka ah. Nimanka waaweyn cid ma soo qabato, cid ma soo xidho, cid ma oga, meel kastay ku jiraan. Sharciga Soomaalidu wuxuu qabtaa badanaa qofka jilicsan. Taas waa wax aad murugo u leh, very sad ah. Halkuu caawin lahaa isagaa ku dilay aan ku dhaha, kii ku dulminayana sharcigaa difaacay.